بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة المسد وسورة مكية waxay soo degatay hijradii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka hor. sabab nuzuulka ay leedahay waxa uu ku saabsan yahay abulahab oo nabiga adeerkii ah iyo islaantiisii ummu jamiil. waxayna ku timid suuradda nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii kusoo degatay fastac bimaa tu'mar wa acrid cani lmushrikiina markay kusoo degatay. nabigeenu waa kubuurtii safa fuulay ee uu u yeeray dadkii markay u wada imaadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dacwadii u sheegay. dadkii oo dhan way wada imaadeen. abulahab baa ka mid ahaa. ayaa wuxuu ku yidhi abulahab, tabban laka saa'ira alyowmi alihada jamactana. ilaahay maanta oo dhan hoog ha kugu ridee ma waxaasaad noogu yeerisay. nebiguna wuxuu yidhi kelimad ii dhaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli idinkaga noqonayo, dadka oo dhanna aad ugu noqonaysaan boqorro ugu noqonaysaan. kelimadaasina waa laa ilaaha ila allahu muxamadan rasuulullah. sidaa markuu nebiga ku dhahay, nebigu aad buu u murugooday, meeshii buuna ka dhaqaaqay. dadkiina way kala tegeen mar hadduuba adeerkii ka hor imaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa soo degatay suuraddan oo isagiina lagu sheegaya cadaabka uu mutaystay. islaantiisii nebiga dhibi jirtay ee qodaxda ugu daadin jirtay guriga hortiisa, ee xataa kuusheedii ay xidhan jirtay u bixisay si nebiga loogu dhibo, cadaabkoodii baa looga hadlayaa. bismillaahi, ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa suuradda. allihii arraxmaani ee naxariista ku tilmaanaa, allihii arraxiimi ee khalqigiisa u naxariisanayay. bismillaahi, ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa suuradda. allihii arraxmaani ee naxariista ku tilmaanaa, allihii arraxiimi ee khalqigiisa u naxariisanayay. tabbat waxaa halaagsamay yadaa abiilahab labadiisii gacmood. waa labadii gacmood ee nebiga uu saa ugu sayray ee ugu kala sayray markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam la hadlayay. wa tabba isagoo dhanna wuu halaagsamay oo jidhkiisoo dhanna cadaab yaa dhadhamin oo cuni. tabbat waxaa halaagsamay yadaa abiilahab labadiisii gacmood. wa tabba isagoo dhanna wuu halaagsamay. tafsiir kalaa jira oo habaar ah. tabbat ha halaagsameen yadaa abiilahab labadiisa gacmood. wa tabba isagoo dhanna ha halaagsamo. ma aghnaa ma uuna deeqin canhu abulahab xaggiisa maaluhu xoolihiisii iyo wamaa wixii kasaba uu shaqaystay oo ubadkiisiiyo carruurtiisiiyo wiilashiisii ah, waxba mayna u tarin cadaabka ilaahay. sayaslaa wuxuu geli doonaa naaran naar ayuu geli doonaa, naartaasoo daata lahabin olol iyo holac u saaxiib ah. wamra'atuhu xaaskiisuna way geli doontaa xamaalata alxatabi, mid qoryo xambaaris badan xaal ay tahay, ama mid xaaba xambaaris badan xaal ay tahay. xaabi iyo qoryo labadaba waa la dhahaa. qoryahaasi waa qoryahay nebiga u daadin jirtay si ay u mudmudaan. fii jiidihaa luqunteeda dhexdeeda waxaa ku sugnaaday oo ahaaday xablun xariggaasoo min masadin xaskul ama liif naareed laga sameeyey. sababtay ku mutaysatay xarigga luqunta loogu xidhayana waa kuushii ay ku bixisay nebiga dhibkiisa, si loogu dhiba nebiga calayhi salaatu wassalaam. wallahu aclam wa axkam.